Cadaani Hirmooge oo afayeen u ah ururka ONLF ayaa Maxamed Cabdi Sandheere uga warramay sida ay wax u dhaceen. maalinka Isniintii ayaa cutub ka mid ah cutubyada xoreynta Ogaadeniya maalinka Isniintii ayaa cutub ka mid ah cutubyada xoreynta Ogaadeniya ciidanka xoreynta Ogaadeniya oo deegaankan ceelgaabta loo yaqaano Hirmooge iyo Farjano aaga ku sugnaa iyo maleeshiyaad Soomaali ah oo xuduudkan Hiiraan ka howlgala Ethiopiana la shaqeeya iyo maleeshiyada hawaarinta loo yaqaano ee maamulka gumaysigu ka dhisay Ogaadeniya ay leeyihiin iyo ciidamada wayaanuhu ay isugu tageen halka dagaal adag baa ka dhacay oo laba jeer oo isku xigta dhacay rag saddex ku shiiday sidaas oo dhacay nin kale oo buka oo oday ahaa oo mas'uuliyiinta jihada ka mid ah oo degmada Matamaan aageeda ku sugnaana walaal sano wada jamaaca yaa ka gabatay Ethiopiaanka ku sugan gobolka Galguduud sidaas wuxuu dhacay waan gartay marka ragga aad sheegteen ay shiideen ay dhinteen mooyaane kuwii kale rag kale waxaa la qabtay dowrno saddex kale oo dhaawaca afar dhaawaca la qabtay dagaal muddo dheer socday oo la hareereeyay buu ahaa markay rasaas ka dhamaatay oo iyagoo dhaawaca ayaa la qabtay ragga kalena waxaa gacanta Ethiopiaanka ay galeen waan gartay dadka saddexda dhimatadii sheegtay waxaa ka mid ahaa la yidhi xogayii gaashaandhigga ee ururka hay naftigoor deeq sheekh deeq baa ka mid ahaa laba naftigoor oo kale ayaa ka mid ahay marka waa dagaalada caadigeena dhex mara mas'uuliyiinta ONLF iyo naftigooruhu waa isku xuquuq waa isku xaq dagaalkaasi sidan baa nagu galaa xagga nolosha iyo wixigana kuma kala duwan marka hadda ka hor rag safaro way naga shaqeey jireen hadda kadibna way shaqeeyaan marka waxa kama bedelayso xaqnimada qadiyada waxba kama bedelayso muxuu ahaa halgankii aan ku jiray marka waxay xoojinaysaa carada shacbiganaga iyo carada naftigooraha iyo dadadka jawaab adagna waan ka bixinaynaa waan gartay marka baladana dib u noqono xilliyada ay dagaaladana dhaceen iyo sida saxda deegaanada ay ka dhaceen maalinka Isniintii bay dhaceen bishu ay ahayd 18 marka waxay ka dhaceen deegaankan ceelgaabta loo yaqaano Hirmooge iyo aagaasi ka dhaceen shiraabi u dhaxeeya feerfeer waan gartay marka bal waxaad ii sheegtaa haddii sarkaal heerkaas oo xogiyii gaashaandhigga ururka la dilo awoodda ururku sida ay ku socon karayso inagoo og in xubno hore oo sarsarana sida adigoo imika carabka ku dhufatay laga dilay ururka xogiyihii ugu horreeyay ONLF xogiyihii gaashaandhigga 92 ayuu ku shiiday dagaalkii go'aan ka dhacay xogiyihii ku xigayna wuxuu ku shiiday Soomaaliya dhexdeeda oo walaal al-shabaab baa dishay Ilyas Shaqali marka xogayaal badan baa shiiday guddi fulin baa shiiday gabadha shiiday naftoora caadi ah shiiday shacbiga naga shiiday marka ummadaha gobolka waxay astaan u tahay inuu dagaalku dhab naga yahay waxay astaan u tahay inaan arinta ay ku joogsanaynin ilaa 92 xubno guddi fulin oo badan iyo golaha dhexe iyo taliyaal ciidan iyo naftooriyaal iyo shacbi caadi ah oo ku shiiday dagaalkan waana ku jireynaa waan laba laabayna insha Allah waan gartay xilliyo dhexe waxaa jiray in la leeyahay wada hadallo ayaa laga yaabay inay u furmaan Ethiopia iyo ururka ONLF oo xitaa waxaa jira kulamo qarsoodiya oo meelaha qaar ka dhaca arrintaasi waxay ku dambeysay arrinta hadalka dawladda Kenya dhexdhexaadiye ka horeyna uma socoto feelka mana uusan laabmin dhanka Ethiopia ka socon lahayahay oo hogaamin la'aan baa haysa Ethiopia sidoo uga baxay ninkii meeshan ka talin jiray falis dhexe oo Ethiopia arrinteeda dhinac u wada dhaqaajin kara ma jiro marka ishaysad gudahana sida aad ogtihiin yaa ka jira ururka EPRDF-tu kooxo u kala go'ay TPLF-ta naftigeeda oo saddexaad ah EPRDF oo isku haysa iyadaba laba group noqotay markuu madlas meesha ka baxay marka iyada mashquulsan oo aan hadda wada karin kaasi waxa uu ahaa Cadaani Hirmooge oo ah afayeenka ururka ONLF oo Maxamed Cabdi Sandheere khadka telefoonka ugu warramayay dhageystayaal waxaa naga xasuusin ah inaan isku daynay inaan jawaab ka helno mas'uuliyiinta ururka Ahlu Sunna wal Jamaaca ee gobolada dhexe iyo waliba ismaamulka Soomaalida Itoobiya balse ilaa haatan